29 bishii hore ayaa golaha wadatashiga qaran waxa ay soo saareen jadwalka doorashooyinka dalka iyo go'aano ku saabsan qoondada haweenka iyo dib u heshiisiinta gobolka Gado. musharax madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Axmed Jaamac Shaale ayaa soo dhaweeyay go'aankaasi madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku shariyay magaalada Muqdisho. madaxda ayaa soo saaray habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashada heer federaal. musharax Shaale waxa uu sheegay inuu aad u soo dhaweynayo jadwalka doorashada ee la soo saaray. doorashooyinkan maanta lagu heshiiyay in la qabto iyo schedule-ka la soo saaray ama jadwalka la soo saaray aad baan u waafaqsanahay anigu. waana runtii horumar la gaaray is-afgarasho iyo si dhib yar oo wanaagsan in la isku afgartay. mar kastana waxaa loo baahan yahay waxyaabaha laga wada hadlayo ee lagu heshiinayo la saxiixayo inay saldhig u yihiin rabitaanka ummadda. haddaan tusaale u qaato qodobo yaryar oo waxaa jira lagu noqon karo sida madaxweyne Maxamed Shaale waxa uu sidoo kale sheegay in heshiiskii hore ee la gaaray wixii weli muran ka taagan yahay loo baahan yahay in isafgarad lagu dhameeyo. heshiiskii Dhuusamareeb oo hadal yar ka taagan yahay beddelkiisana ay waxba dhimaynin laakiin isku dhawaasho iyo kalsooni gelinaysa ummadda loo adeegayo ee arrimahooda la wado wax dhibaato ay keenayaan ayaan jirin. haddii lagu noqdo waa arrin aad u wanaagsan. anigu gaar ahaan arrinkaa waa soo dhaweynayaa. sidoo kale heshiiskii May ee Xamar haddii isaguna dib loogu noqdo waxyaabihii la tabanayo dhibaatada keenay lagu noqdo oo wax laga saxo iyaduna waa soo dhaweynayaa. taas labada qodob oo u adeegaya rabitaanka ummadda inteeda badan haddii sidooda loo dhaafo ummadda ay rabto rabitaanka ummadda uu ku salaysan yahayna iyaduna waa wax la gartay. laakiin guud ahaan go'aamada la gaaray iyo qaabka hadda jadwalka loo soo sameeyay aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay. qof kastoo ummadda horumar la jecelna waxa weeye inuu ayido labada qodob oo aan kor ku soo sheegayna waa fiicnaan lahayd in dib loogu noqdo la saxo. waayo wixii bay sii fududaynayaan wax muxuu ahaa culays ay keenayaan ma jiro. sidaa awgeed waan soo dhaweynayaa guud ahaan gaar ahaan haddii labada qodob la saxana iyaduna waa la soo dhaweynayaa. jadwalka cusub ee doorashada ee la soo saaray ayaa dhigaya in doorashada madaxweynaha dalka ay dhacdo 10 Oktoobar 2021. Cabdiraxiin Caylaawe, Somali Cable, magaalada Muqdisho.